السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبة هودا ku xiran bartiyaga Facebook oo waxaan leeyahay caweysin wanaagsan meel walba ka joogtiin shanta qaaradood ee caalamka wal wax yar ii kaadi caawad wala isku dhageeyaa walaal صاحبنا شرفت لما العرض دقيقة إمكاني أنا كمبيوتر كذا أشوار يا سلام صدق سكنا إيه كذي بقى محوري عمسك محوري هذا صوت جسي أنا وأنا هجسن أتوك درتعوفسن نسيك عليه هجسن أيا وإبي دعيسن عوضة اسكا حوغا wax karbaasha amansan aragsan ilinta tirtiray amansan aqlaqsan bata intiisan ayaan u huraasi toos ikaad amsaki marka waa maasantahay saaxiibada sharafta la igaraale ahaada inta yar ee aan ku mashquulsanaa xiriirinta baraha kale ee bulshada waad mahadsantihiin qiimaha iyo qadarinta aad ii haysaan anna waxaan idin leeyahay sidoo kale waad mahadsantihiin waxaan rabaa caawa inaan dabcan wax yar ka iftiimiyo arimihii ugu dambeeyay Soomaaliya dhamaan saaxiibada sharafta leh Farxaan Cali Xalan iyo dhamaan friends halkan igula jira dabcan ay salaamay maadaama mid aan u dhihi karin Umar Maxamuud Amoore iyo hebel aan dhihi karin qeybaha dambe barnaamijka igala qayb qaadan doontaan waxaan idin leeyahay salaan kalgacaltooyo iga gudooma meel walba joogtaan waxaana mar walba idinku helanahay soo gudbinta mowduuc idinxiisa galiya inagoo marka dabcan aanan cidna ku xad gudbayn ha noqoto mucaaradka dawladda ha noqoto dawladda federaalka ee Soomaaliya si asluubaysan in loo hadla ayaa xigmada lafteeda dabcan laga raadin karaa qodobada caawada aan barnaamijkan inaan ku qaada dhiga rabo waxa kamid ah kiiskii qalbi dhagax iyo golaha baarlamaanka Soomaaliya oo shalay ka dhawaajiyay dabcan wasiiradii gargaarka iyo maareynta musiibooyinka dagaalka madaxweyne Farmaajo uu cilaamiyay dabcan ciidankii Soomaaliya iyo mishaarkoodii ma heleen mas'uuliyado halkee lagu maareeyaa sadaqliga gobolka Banaadir lacagaha ka soo xarooda doorashada Somaliland mal oran kara dabcan kulmiya guuleystay wadani inta xogta ka hayno faiiso wadanisa maxay kaga duwan tahay Aamina Dhool intaas ayaan rabaa barnaamijka caawa inaan idinku faaqido anigoo soo koobayo waana mahadsantiin marka hore waxaan jeclaan lahaa marka hore inaan ku bilaabo baarlamaanka Soomaaliya ayaa shalay ka dhawaajiyay kiiskii qalbi dhagax iyagoo marka kalfadhigii baarlamaanka uga dooday dhageystana guddigii Mariin Cariif hadaan qaldaneen magaceedu ee madaxda u ahayd baaritaanka kiiska qalbi dhagax ay soo gudbiyeen inkastoo golihii baarlamaanka siyaabo kala duwan ay uga hadleen kiiskii qalbi dhagax anigu ma oranayo Cabdiqaadir boos ahaan ma dhahayo ama dawladdan mucaaradsanahay ama dawladdan taageersanahay laakiin waxaan ahay shakhsi u taagan inaan dalkayga iyo diinteyda iyo sharafkayga iyo cizigayga si asluubaysan uga hadlo
wixii igala gudboonna aan ka dhawaajiyo haddii dawladdu wax wanaagsan qabatay inkastoo anigu shaqsin ahay aan waxba kusoo kordhin karin dawladda haddana dee qofka Soomaaliyeed fikirkiisu mar walba waa muhiim in la dhageysto haddii noqoto madax haddii noqoto shacab iyo culimada caam intaba kiiskii qalbi dhagax inkastoo aad ka wada dharagsantiin siyaabaha uu ku imaaday khilaafka Jawaari iyo Xasan Cali Kheyre iyo sababta in la isugu culaadinayo haddana muhiimadda shacabka markaan ka eegno kiiskii qalbi dhagax boqolkiiba boqol kiiskii qalbi dhagax baarlamaanka la horgeeyay intaan laga dhawaajin ka hor oo aan la horgeyn loo dhahay bari Jawaari wuxuu dhahay waxaan horgeynaynaa baarlamaanka wallaahi billaahi magac ilaahay baan ku dhaartay waa habeen isniin soo galeysay waxaan ogaa in loo saarinayo Sambalolsh in loo saarinayo dadka siyaasadda aad uga dhundaleela dibcan waa ogaayeen Sambalolsh taliyihii nabad sugiddu ahaa dhanka siyaasadda Allah u naxariista laga dhahaa qofka markuu siyaasadda ka tago dabcan uu ka dhinta siyaasadda waa qof caadi ah marka Sambalolsh in lagu eedeeyo waxa uu soo kordhinay shacabka Soomaaliyeed nin xilka laga qaaday xitaa hadii uu joogi lahaa Sambalolsh maanta xilka laga qaaday lahaa hadana xilka laga cun laakiin yaa mas'uuliyadeeda leh Sambalolsh madaxweynaha رئيس الوزراء معارض محافظ كأنت بوحنا الله بل سيف عن يقولوا هذا دل كان إنك ونقد حياة ما أنا فرماجة جعلها ما أنا فرماجة نعبا وح من نوم سوكر اسمك حقيقة هذا دل كان وحوبه هي دل يرك عذون سميس دل كان وحوبه هي دل يرى أقال دل كان وحوبه هي دد قبيل كتنازلي دل كان وحوبه هي دد جعنت dad gacan bir ah ku qabto dalkan wuxuu u baahan yahay dhalinyaro ay ka go'an tahay inay xifdistaan dalkooda waxa maalin walba dhimanaya ama shabaabku dilaan waa dhalinyaro waxa ciidanka dawladda qoray xabada kaga fakato waa dhalinyaro ama bajaaj ha wadaan ama shacab ha noqdaan ama shabaab ha lagu tuhumo waxa la qarxa ku dhimaado waa dhalinyaro waxa badda ku dhinto waa dhalinyaro waxa soo dabcan dhalinyarada ayaa la rabaa muhiimadda kuwaad inaan saarno anaga hadda dhalinyaro nahay waxaan rabnaa qalbi dhagax ma aha maanta nin aan meel cad ku fiirsan karna ma inagoona dawlad mucaaradeen dawladana taageereenin qalbi dhagaxan ka hadlaynaa qalbi dhagax farmaajo hadii fiiri madaxweynaha Soomaaliya Allah sharfo meeshuu jooga baa waan salaamaya laakiin anigu Cabdiqaadir Boos madaxweynaha kama aqli badni madaxweynaha Soomaaliya waxa laga rabaa intuu meel soo fariistay inuu dhaho qodobka inaan ku dheeraado ma rabo hadii uu wax ka og yahay qalbi dhagax iyo hadii uu wax ka ogeen labadaba inuu dhaho ama waan ka ogaa ama kama ogi madaxweynaha sababta uu uga aamusan yahay maxay tahay dhalinyaro ama farmaajo jeclow ku ilma adeer la noqo ama Xasan Cali Kheyre ka soco ama mucaarad ka soco ama wadanimo u hadal adeeg ku taal laakiin waxa isweydiisa hal su'aal cawada ku jiifo dalkan mas'uul ka saaran maha mucaarad ina wax ku inkirtid muxaafadna ku dhaliishid farmaajo iyo Xasan Cali Kheyre maalin walba waxay ka hadlaan waxa danta qaranka ku jirto Soomaha waa isku raacsanay ilaa madaxda qaranka maxay uga hadli leeyihiin baarlamaan meel noo dhig wasiir isayst meel noo dhig xildhibaano kacsan meel Jawaari wax naqsan meel noo dhig wuxuu farmaajo uga hadli leeyahay intuu meel soo istaago dhibaatadii qalbi dhagax maadaama malaayiin Soomaaliyeed ay wali dhagahooda ka sii guuxayso madaxweynaha kamuusan hadlin ilma adeeryaal waxaan rabnaa inaan garta inta ku gooyno madaxweynaha qalbi dhagax kama hadlin idmiinis arintaasi ama waa uu la xishooyay oo ceebay la noqotay ama waxbuu ka ogyaho balankaas ah inuu ka aamuso hadii uu wax ka ogaa oo balankuna saa ahaa waxa la rabay maadaama baarlamaanka hor imaaday inuu san weyso u dhornaan madaxweynuhu uu ka hadlo shacabka waa la qanciyaa ilaa hadii uu wax ka ogeen horta waa ceeb oo madaxweyne ahay dalkan iyo diintan iyo danta shacabka u dhaartay qalbi dhagax markii la dhiibayna madaxweynaha wax kama ogaa hadalkii iigu fool xumaa waaye burburkii siyaad bar wixii ka dambeeyay inta dawladda curanayeen ama dhalanayeen fool xumadu ugu weynayd waxay tahay madaxweynuhu waxba kala ma socda qalbi dhagax de marka madaxweyne ma tiida noqonay micneeda waxaba u ron inuu dhaho madaxweynaha waxa u sharaf badan inuu dhaho waxbaan ka ogaa Ethiopia heshiis naxmar inkastoo sharci caalami anaga iyo Ethiopia inoo dhaxeen oo maxaabiis isweydaarsi ah haddana maanta baarlamaanka hadii uu dhaho waa qalad xukuumaddan ha ka laabato kiiska qalbi dhagax waa inay soo celiyaan waa in aan ONLF la dhaho argagixis waa qalad oo ONLF looma aqoonsana it means David Cameron kama aqliya farmaajo iyo Xasan Cali Kheyre oo midowga Yurub markay ka go'een David Cameron oo uu leeyahay shacabkiisa in lagu sii jiro AU ama midowga Yurub shacabkiisna ay doorteen aftiq qaran kadib in laga go'o baarlamaanku waa shacab de halkan Soomaaliland shacab ma oday mugta xilku iska dhigay
haddii maanta la dhaha golihii wasiirada go-aan qaldana inta gaareen qalbi dhagaxna la dhiibay dee dowladda iyo madaxdeeda maadaama golihii wasiirada ayba dheheen argagixisu ahaa iyagana waxbay ka ogaayeen marka madaxweynaha sharaf iyo qiimo waxaa u leh maanta anigu ma dhahayo saddexdaas qof afrikaan isma casilo laakiin qiimo iyo qaayo u lahan leed maanta camal waa scandal waa fadeexa waaye adduunka waa la iska casilaa taas waa ma aan ka tagana wax badan naga dhuminin dadka kiiska qalbi dhagax ku xiraaya wasiir Siraaji oo madaxda mucaaradka odawaa iyo mahad salaad ama madaxda mucaaradka dabcan dadka dowladda hadda dhaliilsan dhahaaya Siraaji way ka aamuseen war waxna waa masiir umadeed waxna waa dambi dalka fiiri masiirka wax ciyaar maaha masiir umadeed oo Soomaali ah iyo wax dambi dalka dhexdiisa ka dhacay two parts waaye wasiirka ninka dila Siraaji ciidid ninka la dhaho ama hal dilo ama hal daayo maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa go'aankaas leh qof shacab ma gaari karo madaxweynahan gaari karin anaan gaari karin idinka qiimaha la gaari karin maxkamadda ciidamada qalabka sida xeerka sida ahaa ayaa loo waafajiyay marka qalbi dhagaxne dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa laga dhaxwata dal cadow loo geeyay isagoo aad xasuusantihiin dagaalkii 77 uu ka qayb galay bal ka waran dowlad aan la dagaalaysay 77 oo ilaa haddana aad la dagaashan tahay markii dadkaaga ku dhiibaan ee ayaga farta laga saaro dowladdaas maxaa dareenkaagu noqon lahaa bal adigu qalbi dhagax ka soo qabay qalbi dhagax dhibistiisa 4,000 oo qof oo Soomaaliya ka qiimo badan gudaha ku dhimato anigu fikirtay oo anaga iska dilno wax weyn oo micna kuma fadhiyaan 4,000 oo qof marka anaga iska dilno of course micna qiimo la way leeyihiin dadku laakiin Soomaaliya iska dishay meel loo raacdo ma laha adduunka kuma cambaareen kartid adaa gacmaha isku toogatay laakiin qalbi dhagaxan dhiiba dowladda u dhiiba wax weyn ila tahay anigu ama Israa'iil loo dhiibo ama Mareykan loo dhiibo ama Sacuudi loo dhiibo Ethiopia cadawayga ma dhahay aniga waa dal doorsa hatta Yemen loo ma dhiibi karo qof muwaadin Soomaaliyeed in my point of view saas waaye aniga leema dhiibi karo Sacuudi oo dal Islaam ah oo calankooda ashaadka yahay la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah ima dhiibi karta aniga because dalkayga ma aha Ethiopia waa saas oo kala de dal shisheeyo dhan ayaa qof Soomaali loo dhiibi karin ayaa aniga ceeb ila tahay marka baarlamaanka maadaama uu soo gudbiyay inkastoo sida odawaa sheegay kiiska macata wali ma dhameystirna waa in dusha ay saartaan xukuumaddu waa in madaxweynuhu dusha saarto waa in shakhsi aan tagin mid nool la saaro ilaa sambaro shadee idminis wuu tagay siyaasadda uu ka tagay way sahlantaa wax walba in loo saaro taas kiiska qalbi dhagax iyo Siraaji inay waxba iska gelin ayaan ku cadeynayay qodobka labaad wasiirada gargaarka iyo maareynta musiibooyinka Dr. Yaas Marin Qaasim iyo Sheekh Umal ayaa arintan dagaal ka dhaxeeyay isbuucan maxaan ka naqaanaa labadooda waxaan rabaa inaan ku dheeraanin laakiin si islaamnimo leh oo Soomaalinimo leh oo aqliga saliimka ayaa rabaa inaan uga sheego horta sheekha aan jeclahay Sheekh Umal oo aan anigu aaminsanahay sheekhnimadiisa iyo diintiisa heerka uu ka gaaray la xafiday oo aan wadaad kale maanta lama dhigi karin inkastoo idinku badi mucaaradsantihiin haddana qofka nabi ma aha waa la dhaliili karaa waa saxaabi ma aha oo su'aal waa laga keeni karaa qofka waa Soomaali Sheekh Umal dowladii Cabdullaahi Yuusuf sida ogtiin wuu ridiyay oo wuxuu yiri dowlad gaala ah waay sidoo kale Sheekh Shariif muusan jeclaysan oo wuxuu yiri dowlad sidoo kale ah waay oo wuxuu ku tilmaamay YouTube ka heli kartiin iyadoo faahfaahsan maantana wuxuu imaado dalka ra'iisul wasaare Khayra ku soo dhaweeyay airportka waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed inaan weydiiyo maadaama anagu aan nahay dad aqoon leh oo cilmi leh oo wax isweydiin kara inkastoo aqoonteena dabcan ana hadda aqoonteeda dabcan aydan dhihi karaan waxba idin kugu miisaama laakiin dad dabcan macallimiin ah siyaasiyiin ah indheer garad ah ayaa halkan ku jiray culimadiin intaba waxaan rabaa inaan weydiiyo Sheekh Umal Allah xifdiye madiintii uu ku ridiyay Cabdullaahi Yuusuf iyo Sheekh Shariif ayaa update gareeyay mise isaga fikirkiisu wax iska bedeleen mise federaalka iyo waxa uu diidanaa ayaa laga saaray oo dastuurkii uu diidanaa ayaa la bedelay intaas oo jawaab ah ma hayo idinkana ma haysan marka Sheekh Umal waxaan u fahmay wadaad
dantiis aqoon ah anoona dambaabaynin idinkana marqaatiga tiin maanta ilaahay hortiisana taagana dawladii waa dawladii wali dastuurkeedii wadataa nidaamkeedii ku socotaa shalana wuu ridiyay maantana airportka ku soo dhaweeyeen madaxdii isagoo waliba lacag gargaar u wada inta waxa rabaa horta Sheekh Umal iyo waxa uu yahay inaan ku fasiro labo qofka ay isku dhagan yihiin maama Maryan Qaasim oo ah wasiirada gargaarka iyo maareynta musiibooyinka qaranka waa gabadhii waxa la fiirshaa laba qof markay iskhilaafaan waxa la fiirshaa arinta guud ee marxaladda ay ku dul wareegsanayaan iyaga Maryan Qaasim waxay ahayd gabadhii Soomaaliyeed ee islaamka ah ee diiday Uhuru Kenyatta inay salaanta gacanta ku salaantay saas dhahday shirkii New York dabcan United Nations ka ka wareysan inay salaanta diiday iyadoo dabcan ilaashanaysa diinta islaamka Allah u barakeeyo Allah xifdiyo qofka noocaasa maxay ku diidi kartaa inay qof salaanta ajnabi ka ah xogta sidan ku hayana waliba ma salaanta lagu leeyahay qofka ajnabi ka ah dalka dhexdiisa wallahi inaan Maryan Qaasim wallahi baan idinku dhaartay inaanan aqoonin Maryan Qaasim waligii la hadlin magaca Ilaahay baan ku dhaartay daas leedin dadkiina qaar dad ba aqliga fargeeteer loogu shubay dad farxiye ka beer mugta waxa laga yaabaa dadkiina isdhaa Maryan Qaasim ama la soo hadasha ama saas dhahay wallahi haday aaminaysan Maryan Qaasim ma garanayo waxa ay salaantaas u diiday ama gudaha dalka qof ajnabi ah inay salaantay u diiday waa aniga sida ila tahay waa diinteeda iyo aqeedadeeda ila tahay haday rabto ajnabi wana aba kartaa inin laakiin anigu waxaan ku qiyaasaa waa diinteeda idris waa ka qaadi soo dhaw saaxib qofka noocaas ay diintiisa ilaashanaya ma laga yaabaa inuu ummad qiyaano waa su'aal weyn waa su'aal weyn ma laga yaabaa qofka diintiisa aan u jeedno inuu ilaashanayo ma laga yaabaa inuu qof qiyaano ummad qiyaano Soomaali lacagteeda qiyaano waa maya waa arinta guud markaan ka hadalno dib markaan hoos u degnana waxa ay weydiinaa waxay tahay Sheekh Umal lacag kasta uu ka soo ururiyo waa wadaad waa lagu aamini karaa dabcan Ilaahay xafdiyo waa lagu aamini karaa laakiin dalku dawlad buu leeyahay nidaam buu leeyahay wasaaradu leeyahay waa inuu soo maraa wasiirada gargaarka iyo maareynta iyo musiibooyinka qaranka iyada ku shaqo leh inay qabato ama ka guddoonto hadiyadii uu ka wada walaalaha Soomaaliyeed ee ku nool dalka Kenya ama Nairobi caasimadda ah kuwaas ma mudneed Maryan Qaasim ma mudneed inay ka qabato shacabkeegiyo waxa ay weydiinayaan Maryan Qaasim ma ahayd qofka mudan inay qabato gargaarka uu ximbaarsanaa Sheekh Umal oo uu ka soo qaado walaalaha Soomaaliyeed ma mudan tahay mise ma mudna haddaysan mudneen Sheekh Umal waa kaasa hadday mudan tahana Sheekh Umal ma aha intuu soo maro oo dhaho shacabka Soomaaliyeed ayaan gargaarkan u wada iyadoo la wacin waxaadna xasuusatiin oo idin xasuusinaa jeclaan lahaa lacagtii haddii aan xisaabta dabcan $600,000 ayaan u malaynayaa walaalaha Soomaaliyeed ee Puntland ku nool iska soo aruuriyay waliba boosaaso bari u badan ee Abduli Gas madaxweynaha maamulka Puntland uu soo wakiisheen ee Soomaaliya la keenay Xasan Cali Khayr la soo warnaayay wasiir kale wasaaradan gabadhan Maryan Qaasim ma joogin goobtaas iyadaana ku shaqo leh maadaama ay gargaarka iyo musiibooyinka ta qaranka iyada shirkaas kama muuqan waa lagu bahdilay lacagtii uu Umal keenana waxa la rabay in ayada la marsiyo hadii dawladnimo jirto waay marka maanta ma waqtiga Cabdi Qeydidi Muuse Suudi ma aha wadaadka intuu wax keeno wax qiimi jira maanta dawlad sidan isla aaminsanaa dawlad Soomaaliyeed waa in wax loo maraa hadii maanta hubna la siinayo oo villain hub ee nagu deeqdo ani ma soo qaadayo kaaran geenayo masbakaaro wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya oo marsiyo waay saas darteed iyaduna waxay tiri baraha bulshada ama Twitterkeeda ka dhahday waxaan uga tagay halkan isbarbaryac iyadana dabcan maamada waxaan leeyahay hadalkaas waxa mudnaa ra'iisul wasaaraha ina ku dhahday barbaryac ayaa socday isbarbaryac shacabka sababta shaqada uga tagtay qasama inaad ogeysiiso duruuf aniga qaas dhigi karta dabcan sirta dawladana ila ma qurxooneen ina adna halka ka dhahdo laakiin in laga gardaray ummadda Soomaaliyeedna way dareemi kartaa qodobka saddexaad oo aan rabo inaan ka dhawaajiyo waxay tahay dagaalka madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Farmaajo uu iclaamiyay bil ka hor ma muuqata astaan dagaal maanta waa maya xiriirka kubadda cagta ee SACAF Africana Soomaaliya wuxuu tartankii caalamiga ah ee Afrika uga reebay marxalad dagaal ay ku jiraan inagoo maanta aanan ku jirin wax dagaal ah
oo ay ka dhageysteen meediyaha kaliya madaxweyne farmaajo ayaa dagaal iclaamiyay sidaas darteedna xulkeena qaranka Soomaaliya looga reebay koobkii caalamiga ee Afrika wax dagaalana ma muuqdo wax juhdiina ma muuqdo sideedana inkastoo qaacido dagaal ay jirto sida xisaabta qaacido u leedahay dagaalkuna u leeyahay marka aad la dagaalayso falaago ama dad mucaarsan dawladdaada waxaa jira nidaam loo maro oo ah laba maado waa koow haddii dadka aad la dagaalaysa adigoo dawlad ah ee falaaga yihiin ha noqoto shabaab ha noqoto maafiyada talyaaniga ha noqoto alqaacidada afghanistan ha noqoto drugska kuwa mexico ka dagaalama ha noqdaan ciddee doonto waad ka adag tahay soo maaha dalkan adaa maamushid waxaa la rabaa inaad adeegsatid shacabkan u sheegtid laba arrin oo muhiim ah waa kow in dadkaas ay jabeen lasii ugaarsanooyo falal way samayn karaa dabcan wayna ismuujin karaa dadku lasii ugaarsanooyo oo ciidan tallaabo dadka waa inaad tustid military oo aad ku ugaarsanaysid kuwa waaye lambar labo shacabka Soomaaliyeedna waa inaad meediyaha uga sheegtid in aad guuleysateen oo aad ka adkaateen laakiin marka shacabka Soomaaliyeed aad ku tiraa waan ka adkaan weynay madaxweyne farmaajo oo aysan welina muuqan hab aad kula dagaalami kartid maadaama dadkan falaaga yihiin oo aan baysas qabin oo kula dagaalami karto ciidan meel taagan aysan ahayn labadiiba kaama hayna waxayna u muuqan kartaa laftirkeeda fashil iyo hadal uun la iska yiri oo aan wax micno weyn ku sii fadhin waxaa soo hartay madaxweynuhu dagaal ha galo ma xuma laakiin ma ogsoon yahay madaxweynuhu inaan weli la magacaabin wasiirkii gaashaandhigga Soomaaliya ma soo og yahay madaxweynuhu in qaranka taliya nisa aysan lahayn wax sirdoon madax u ah ma soo og yahay madaxweynuhu in booliska uusan taliya lahayn maadaama nisa aysan jirin wax hogaamiyo gaashaandhiggana aysan jirin wasiir ay leeyihiin sidoo madaxweynuhu ugu suurtageli kartaa in uu dagaal ku qaado kooxda uu isagu yaqaano cadowga maadaama hadduusan cadow u aqoonin kaliya waa uu la dagaali lahaa bal aniga madaxweynaha la fariisiyay maanta taas madaxweynaha ayay su'aashiis ku laaban doontaa iyo taageerayaashiisa oo qaas taageerayaasha madaxweynaha waxa uu aqaan aniga qofka markuu madaxweynaha qaldan ku sii taageer ayaa taageera loo aqaan anagu farmaajo dalkan naga ma xiga dalkan anaga iska leh dhalinyaro nahay waxa dhinto ee dhamaado ee baabao waa dhalinyaro sidaas darteed marka anaga laga rabaa hadii madaxweynaha qaldan yahay haduu saxsan yahay inaan labadaba sheegi karno ilaahay hibada isku siiyay waxa soo hartay lacagta gobolka Banaadir ciidamadu mushaar ma qaateen 6 bilood maya sababtu maxay tahay lacagta gobolka Banaadir markan xaqiiqada u hadlo dad bay qaraar ka dhigi kartaa dad baa xumaan kara dad baa caron kara wallahi billahi jaadka kaliya xogta aan haaya cawada ay soo bandhigay waxay tahay canshuurta jaadka laga qaado jaadka kaliya laga helo bardhay ama maalin walba ayaa u dhaxaysa 130,000 ilaa 139,000 oo doolarka Mareykanka ah oo laga helo isha jaadka kaliya canshuurta jaadka ma wax kale ma howl kale filin kale ma jirto waa lacagta laga helo ama canshuuraadka laga helo jaadka halkii bishii imse noqon kartaa waa 140,000 oo doolarka Mareykanka ah bishii imse noqon kartaa imse askar ay qabtiri kartaa lama hayo taas bedelkeeda xukuumadda Xasan Cali Khayre ee qaranka waxay diiradda saareen in ay ku dhaqaaqaan fal ay ku fashilmeen dawladdii ka horeysay oo ahayd in la isku dayo in maamul goboleedyada diiradda la saaro oo laga tuuro madaxweynaha hadda jooga ee la saarto nin isaga la saaxiib ah ha noqdo 8 February ha noqdo damajiriid madaxweyne walba wuxuu isku dayayaa dabcan qof isaga saaxiib dhow la ah inuu kursigaasi saarto si uu si dhow ula shaqeeyo taas oo u muuqata mid aan sometimes dhicin oo lagu fashilmo waxa ku bixi karta se lacag ay u qalmeen askarta taagan midda kale waxaad ogaataan askarta dawladda nisa ha noqdaan police ha noqdaan traffic ha noqdaan military ha noqdaan xasilin ha noqdaan kuwa siyaasiyiin ma aha waa dadka u taagan dalka inay u dhintaan waa dadka u taagan in mar walba ay dhididkooda inoo huraan waa dadka u taagan inagoo ogsoon inaysan lacag qaadan banaanka taagan yihiin kuwaas mucaarada marna ma jirto haddii damiir la leeyahay laakiin madaxda hogaamiso ayaa mar walba qaladaad samayn kara lacagahaas oo dhan waxa raali ahaada kole soo galay waa damiyay lacagahaas oo dhan waxa lagu maalgeliyaa burburinta maamulada dalka ka jira qodobkaasna waan ka tagayaa waxa soo hartay doorashada Soomaaliland
doorashada Somaliland inkastoo beesha caalamku haatan guddigii korjoogtada ahayd leeyihiin waxa dhacay cilado farsamo qaladaad yaraa jira haddana arinta guud markaan kor ka eegno fifaaladu inkastoo aan wali lagu dhawaaqin kulmiye ayaa u cadcad guusha Somaliland ama ha ku shubtaan ama cadaalad ha u helaan ilaahay ayaa garanaya taas laakiin inta hadda aan xogta ku hayo kulmiye ayaa u cadcad haddaanse bulshada Somaliland la kaftamo kulmiye waxaa hogaamiyo Silaayo haddana waxaa hogaamiyo Muuse Biixi oo madaxweynaha lagu wado labaduna waxay ka dhasheen labada reer majority ka ah ee Somaliland habar jecel iyo awal fadhi ku dirada waxa laga leeyahay habar jecel iyo habar awal waxay u heshiiyeen in Somaliland talada Somaliland ee mid ay ku wareegto haddii warkaasi Somaliland ay xaqiiqi yahay ما ها واحد أنتم كرجال حاجز أما بيلا كلا إيه سومالان وحن لا هاي قبيل وواحد كفر دلودي وواحد كفر دلي هدي أرنكاس أجرتو هرنكاس هدو حقيقي هاي أنا وحن لا هاي شعب كإسحاق سمران دول بهانته هالك ورسنجلي هالك كوسجن أرنتاس ما هن مد قادن كران برشة سومالان هدي حنتانا وأوكي الله نجع فيه هدي سن حن إهنا أنا سأل واحد لقى بدلو كل مين وحلاها هدي أتصبح هذا أما كصبح نوع دونته قول أيام كورة جينيا ودنينا هدي إنك استو عند رسول الله وقنا ودن نقول أوريجينيا سدوا كلا وعندنا نقول أوريجينيا قدر كقدم بيربينا كوسا أبجر ما أنت واحد مركها فإيش ودني لما يهو أنا جون قفنا كحد جود بين لما يهو أنا جون قفنا تارجت كوهين هاي ويدي قبلنا فإيش ودني الله فيديو بقول جاري نصوت دوبت بقول جاري أنا جاينا لهذاش ثمان يسدد جار إنه أويسي وحف فإيش ودني اللي هو استاج لا هي ويدين سؤال ما هو استاج أنا وهدي اللي استاج هاي ديارنا أنا ومدة كله وح إسهارن مهم مدة وح بيقدرن بعد دت كصوماليات مركب ما أيجا ماجوريتي سنو أيجا بدن أيجا عقل بدن أيجا دين بدن أيجا علم بدن وحول بيجا بدن أني أدينك إلا يابنا أو ور آمن الدول وقبر ولا شيء ورك وحال روا أنا وحوم مقري هايو ما أنا وقريو آمن الدول وقبر ولا شيء وقبر عن فرنسا اسمه معناه مركز رنت للشيء جاي يقفك إسقون الواحد قد بينا رن للشيء كرادي آمن الدول وقبر ولا شيء سيدا يكون شيء ويحن نصبتي قرقاري ومد صومالي ويديستي فنانين صومالي إنه أستاجي مسلمان سنة هين أردس شعب كيجيو شعب كصومالي يدو وحن كهلايو صح متى مسلمان صومالي وين بقى أستاجي سديتهم كون أو دور فرت لها صاري فنانين كلي وبدناين إنك صار العاد شعب كلا جاروش لكن يا هرمود كأها هرمود كياها وفنانين صوماليين فيسودني آمن دول فنان واي فيسودني وميلتري أما ناس هنقطع أما هنقطع حسنين ما أنت سببت جبدا لوجو استهاج لا يهي فنانين الصوماليين لوجو استهاج لا يهين ما حيتها أنا علامة سؤال كسائل إيجا صارم يدينا وليبا إن الأهسو ورنما يودتك وحقي قبت هذا أنت هاي سو تعسيدين أنا جهنا يويني أنا ومدان لا يابنا واتاس قبلها فنانين تمر هاي هبلي مر هاي هدي أرنتن داعد إذا كنت هاي قبلنا مرة سيادي الله في إذنكو حتى هوين وأدريم كرتان حنون كده ومرنا هويتين إذن هويتها وأدريم كرت قيمها أي قفك أقول هذا برشة أقول هذا بالسبب تأدوس تاج لا ده محد والسبب تجبدا اللوجوس تاج لا يا محد محيس كجد وأنت أمدك محيس فنان كجد وأنت عبد المالك أردون واسمه فلع عنه دتك أولي طبعا أنا وما أرك عبد الله يا بي إنه تسيهوس طبعا وقول الشقي أنا وما أرك أنا وحن لا فإيس ودني وجبر صوماليات فإيس ودني وجبر عيدك الصومالي كجرت ودتك ما أنت إنه تاج قرحل وقبل ما أنت عن كل دارن كرنو قبلها إنكستو قبلها صومالي ولا له يهين تهوا ميلتري تمدلك قد قال أنت عن كسر عرنا أو قربان كجونا قرح ذي أتاجني
فإيس ودني فرماجها كوها لين حسن على خير هكوها لين حدي جبر رد عن الهيد مانت إلهي بقى كل أرت رمتا كان لا ياي حدي فإيس فرماجل ليلها ممكن توصل لهذا كرات أنت ميجي جواب كرتها فإيس حسن على خير هدي فإيس خير هدي ليلها ممكن توصل لهذا مانت ممكن توصل لهم لكن فإيس بقى كلا لو قدر إنك سنانيس أنقرنا يودني ما أنت وكوبا أنت وأنا كلمة إيجا حناجسا وحتى $6 حداد إيسو درتاني ده وحويني إيجو فديسايدا وردمير مجرى مياه سديتم كنا فنان وأرو رسالة كبدا ميسان قرب كان هنا ولا هنا ورحد عوض يا فرت تاجي دل كستم محوس كقولي كرا حداد فيلن إيدرتان أنت ككيني كرا إيجي كينا حداد 5 كن نقطة حداد 8 كن نقطة حداد 6 كن نقطة ومداسان ده حقنا لكن أنت هوش أسجل محربة ودن كاستخف موحل سعر كرنا قبل داس وقالوا فنان هسوقين فنان وحبها هسوقين وحب فائدة اللي ملها فنان أني ويدي فنان قيمة أولية هي كجرو آمن دول وستاج فايسن وفيرسي متى هاي آمن دول محلو وستاج وقبر صومالية ولا شيء أو دبعتي سبب العقد أباها لكن محل ربي فنانين صومالية ذا نهي آمن دول أنقرقارني فايسا ما أنت أسو جنة قرب كانوا عاسي من نايت فايسو لكن إن أنت آمن دول سيديتهم كده لورد ما يسترشيش ده اللي يسكفريستو وولي بفنانين تقبلها الصومالية فنانين تأقاركو حتى إدم عين النيروبي شو كل كتان فايسو جيفتو دمير مجرى دمير كمية دمير what the fuck دمير كمية سوري هذا القلدان اللي يقصوا يري والله دمير كيك مجوج دمير كيك مجوج عوضة قبل ولا شيء مركي حل سفيري وكو ولا شتى وكو الدين وكو الدل وكو أف وكو ديك وكو ديعان ونكو ويسم هكذا dad kale dhintay oo damirka ka dhinta jiro dhahaya fa iswadini kaligeed miyaa xanuunsan fa iswadini kaligeed miyaa jaban waxa yaraan ku siinaa example ah hadii aad taajirta lacag leeyahay ama dhaqan oo qadadiisa karsan kara dadka jididka mara oo baahan miyaa wax siisaa mise qofka ku imaado oo baahan ku wax siisaa adiga Soomaaliya been ma isku sheegnaa qof jidka iska joogo oo baahan og tahay in kastoo dadku wada baahan yihiin Soomaaliya jooga qaarkood haddana dadka wada baahan lacagtaada kuma tuugaysidee hooda waa baahantiin ma jirto qofka ku weydiisto oo ku dhahooniyo qadam ma haysto ama casho ma haysto ama si wax yihiin ama caruurtaas asiga ayaa wax la siin jiray gabadhan way kula hadasha hadal ka dibna wax yaala ma jirto oo aan gudnimo ahayn oo aan ceeb ahayn ma jirto war muu istaagna dalkan yaasa ugu imaana oo safiir nooga noqon kara dalalka kale aad joogtaan warnimayo sidoo isku dhaama taasna marka laga soo tagaba dal kale iyadoo loo istaaginba gabadhan account leedahay barteeda Facebook gabadhan number leedahay please waa ku bariya had wiligi social media qof waa ku bariya kama dhihin waa ku bariya faisa da $100 wad iska dir hadad 100 wad iska dir hadad 20 wad iska dir hadin Xasan Cali Khayra u sugaysa war waxaan dadkan siyaasiyiinta ana u jeedaan oo farmaajo leege waad aragteen maanta hadda ku qus qadiisin aqliga haduu shaqeynay farmaajo maanta waa aragteen xitaa maanta haduu dhaw $400,000 dhiiba fays wadina siina ma looga baahan waa mara canaanana waay waa maraan kululeysana waay waa maray qayleysa waay waa maray shacabku isku bahdisho waay waa maraan oyno waay mu baahnin naga ilaahi magaciisa inaan u baahneen maanta haduu caawiyo sem waxba waxa soo kordhis maanta ma jirto laakiin waxaan rabaa inaan 10 u noqoto dadkii farmaajo dhaah leegay farmaajo waa wadani ee dal baa noo dhashay dawlad baa noo dhalatay fa isan ninkii meel ugu tagay wallahi wuu kaaga tagaa meel wallahi magac ilaahan kugu dhartay waa madaxweyne waan jeclaa ilaahay calafkiisa kaga dhigay 4 sano hogaamin doona haduu nool yahay anaga noolnahay laakiin fa isu asugu jeeda ka tagay Xasan Cali Khayra ka tagay fiiri turkiga markii la joogo Xasan Cali Khayra gabar baa u maad waxay dhahday waa u baahana wiil baa iga xanuus cunto muusan cunay video ay ka hadlaysa dadkana u jeedo soo dhig Facebook wuu ka sii cararay markaas jaanis si dhahday markaas lacagta meeqa waa u dhahay markaas tii 3,000 hadan ku siinaa u dhahay wuu haya fiirtaas wuu dhiibi kara dadku istusaay fa iswadini muu dhahay hadan ku siinaa ilaahay baa kugu dhashay fa iswadini muu dhahay xitaa fiir markaa faysal wasaaratahay ee aad fa isoo kale lagu ceebaysan baraha social media baarlamaanka Soomaaliya hortay kara waa 200 iyo konton wax ka badan waay
war min $500 idinka jira dhawaan enough way dhan kasta loo mari karaa faa'iis wadani isaga akoonka dawladda kaga bixi karo waa idin sheegay haday $140,000 ayaa canshuur jaad looga qaadaa wax kale ma bur ma saliid ma adeeg kale ma gawaari canshuurteed ma wax kale ma waa jaad kaliya hal maalin oo lacag canshuur jaadka laga qaado dawladda ay faa'iis wadani siin karaan fiiri xigmadaha shaqeyso daawo laga ma qaadi lacagta daawada waa goori oo maalin walba Dubai Hindi ka soo degtay Pakistan ka soo degtay lacagtii qalabka laga isbir parties ma gawaaridi ma wax kale ma 4 milyan oo shay noo soo degto waa jaadka $140,000 laga helaa faa'iis waa la fiirsanaya $1 milyan ayay dhan tahay lacagtii lagu jijibinayay galmudug iyo hirshabeelle ilaahay laga cabsado gabadhaasna aakhiro qof kasto damiir leh war aakhiro wallahi waa lagu soo fariisinaa hadaada damqana xataa dhiig baa jira dad baan nahay nool ilaahay laga xishoodo dad hadaada ka xishooneen madaxdeediyo ilaahay ka xishoodo wallahi nasna mucaaradnimo igeen magaca ilaahay baan ku dhaartay xitaa anigu maanta 30 sano jira ayaa waxaan garta garalaadiin idinko 70 sano jira what are you talking about madaxweyne Soomaaliyeed maanta daa ahay Facebook way qabaan WhatsApp wallahi billahi tallahi WhatsApp way qabaan Fiber ay qabaan email qabaan email farmaajo email isticmaal wallahi ma ka hadla saadi wujeeda fiir waxa socdo laakiin he don't care kala ma jeclo anigu maanta madaxweyne ah hadii farmaajo booskiis atagnaan lahaa baraha bulshada markii saas iskaga daba yaacay gabadhi masaakiinta qeylnays waxba la sumcada dawladeeda iyo midda madaxweynimo midda magaciisa ay u dhumin wallahi waa u istaagi lahaa inagu gubanay war farmaajo waa gadinta wallahi faa'iis wadin agteedu gal dhinta wallahi qalbi dhagax wali ka aamusaya isla maskaxda mulaya isbitaalka xabib ma geesin wallahi ma aha mucaarad intuu ka baxay ma baahbo waxan waa masiirkeen uu ku ciyaaray wallahi farmaajo ilaahay khayraasi wax kala sheegay ma qofka markuu jini qabo waxa la wala si walo duceeyaa lama habaaray maalinta faa'iis wadini farmaajo maalinta ilaahay khayr ku sii maalinta faa'iis wadini soo daawaysid qalbi dhagax dhahdid waa ka xumaa halkaas eray David Cameron ma ka aqliyarta ingiriiska ninka madaxda wasaaradda ama ka aqranta prime ministerka waa dhigay xilkiis ingiriiska maxay Soomaaliya Britain uga dagay prime minister dadkayga waxaan ma ogol kaliya uga dagay adna qalbi dhagax oo laga wada ooyay dhibta kala ma jecel hataa dadka inta imaad ma dhiyaysa hataa fiiri waxa inoo quurlada qalad waaye raali ah hataa ma dhigi kartid aniga hadda maanta alla waa dhigi lahaa miyaan ka aftaansana miyaan ka nasabsana maxay tahay kaaga duwana anu waba garan waayay nin weyn waa taabeleega hay ama ra'iisul wasaaraha soo dirso haalo war wuxuu dadku u soo bandhiga hatta dadka idan taageersan hatta wallahi ka gubteen qalbi dhagax faa'iis wadani laakiin way isqarinay wali was giijinayaan war qofka markuu qaldamo abaha noqdo adeerka noqdo waa qaldanta ayaa lagu wada noolaa kara adduunka ceeb ma waa qaldanta ilma adeeryaal waa in jeclahay ilma adeer anu mucaarad bihi laakiin waxa ahay waxa horta mucaaradka laba ah midna wuxuu mucaarad ku yahay madaxdii midna wuxuu mucaarad ku yahay waxa xun ee la sameeyo anigu marka waxa ahay qof mucaarad ku ah wax xun ee la sameeyo mucaarad ku laakiin qofna mucaarad ku ilaahayna mucaarad qof iiga ma dhigo waba la soo isdaajina aqar ma qofkan ka rabta ku daba dhigaa leeyahay laakiin wax xun ani ma arki karo ama iguna ama igu jeclaaw wala hasan sheekh hasan ugu dhaliil jiray wala sheekh shariifa ogeyn wala kan waay kan ko ka daran wiliga ma arkin war hasan sheekh khadii dooradiis ay jabto intuu imaado dadka qancina isku day inuu qanciyo dooradeeda saana u jabtay ayada ma maleynaynin muxuu ahaaye kan ma bahadli karabe kan war madaxweynaha hadalka ma rabnay hatta wasiir hatta waxaan soo dirtaa wasiir uu soo dirtaa arrinimo waa in salaamaya thank you very much waqtiga qaaliga ah waxa seega dardaarna Soomaaliyeey dad islaam aan nahay cimrigu ma fogo waa 60 sano adduunkan quruxda badan waa laga tagaa 100 qof waa dhimatay ama hebela mucaarada hebela taageeraya waxa ma tariis soo muqrinayso taariikh ka taga ila qof walba Soomaaliyeedo wallahi billahi nasab waxa aabaha haduu qaldamina dhigi karta aabe qaranka san kuma haboon ayaa nasabnimo ma aha nasabnimo aabahe waa ma hadli kartid aabaha haduu guriga dhaxis noogu xaram ma hadli karno hay أنا ما هو عن حشانه أدونك ولا قلت جاي عن إلهي كعبسنا قبلنا المساكين تفيسنا لو استاجوا فيسوى بعلمي اللي جو برا لها وفرماج إنه صندمير جرين الكو جاد ماشي بس قلب ده يحس كناف
فإسودين إنك دوش كفير سنة فيسبوك كتجاي المليونز دولار إنك يكون بحنا يحافي إنه ضاع أما إنه هير الشباب النعبة وها قف بس سياسة ما قرني سنة واتساب أسكت استعماشي فرماجل وتاجرتي فيسبوك بس واحد صعد لما موجودين بعدك أنت قارب عايز بدين تد واتساب أسكت استعماله فيسبوك إيمانا يعني فرماجل مدحوين على الصنع وها وقبته مشاركة وقاته مدحتويد ماشي كتال دولة وحدة ما فدرال با ما جمهورية با ما ديمقراطية ما بقرنا يا بدك قاربة فرماجل تاجر اللي مغلب قفنا لما تاجر قفنا لما جعل هذا أبين هو إذا تونا ما هني وهو قبتها قف كلهم معارضة وهو قبته ونكسن والو تاجر تاسوا سياسة ما هني قف نعكر وبدم بحيتا كوس عضو أنت نعيس قف هذه ما أبورته ماذا إسكال قفك إله سبحانه وتعالى إسكال قف معارضة كنت ولي جانا تاسي قد حل قفها معارضة هذه ما دالين هذه ما أبورن لقوم ويدينا آخر ما حد يخص قف معارضة لكن هذا عوض عن قلت سمع عبد القادر هذا مانتين قبل يويل وحيد كرتين وحسب سمعنا قولة لسنا لكن مسكين كنا هذه مو بانتين إن ضد القلب قادتان أنت كهذا مستوى اسمع سلامينا هذا ديار التهين سي حيل هذا سن وشرف لنا وسود وين كرتان مركا أنت هذا قد كسوق لنا أما صاد البنانا حنيدي شيء لا قدب كأنك دودينه أيام مهم إن إيديش ها اللي انقدب بدنا كهذا مكت دولة أن وزير قاش عن رجلهن وطليان نبت سجود لهن تقال مقولي كتاب سؤال شيء وهدي جرو وهدو جرو قف قاس أنا سوق قبل لها قف طبعا أنت كجرنا صاحب بدأ يكسو تسكومد يود تهين مال والبوجوتين قف أما الله بقف عن جعله ولي بتهجر الدولة ديت إن قبته أو سي أسلوب يسنا وهالله أو دولة تهجر سنة رب الله ما قف دولة معارض سنة تقوم بهني قف دولة تهجر سنة رب الله عوضة إنه يسوق له تحسن مهم إيه وأنا كنت عيسى نايو بيشكو وكنت وين هاي عوانك أو قف لما سوق بنكره أنت كار يسوق فوش اللي وسوق بكرة لكن قف أم بي أسير قياس دونا هدي وقف كاسي دولة وقف كاسي إنه تغير المهم إيه ما بجعل لنا هاي والله بقول القف أنت سجلت طبعا صاحبك اللغة سنة حتى وجهه أنت قصص ماشان بدل كواد أنت أبو ملاها يا لغة وسلام ولا كي القف أنت سجل بروبينا بل بس كقارب بس كجي فهم فيديو كاميرا كم بحكرام بس كقارن ديار وي ما كلا جران كرام مركز داو بانتاي خاص يقول سوقر إن أتكقيب قاد تودان لغة ما كقيب قاد اللي دودان محمد وعود يعني يسوق وراء يعني يسوق محمد عبد الله حدان كوارك أونلاين كا وكسوق بنا يا عبد الله وكنا عبد الله سودو أبو أو هو قد كيس أسامح هو يسجنا أنا يسوق بنا ماشي هذا عصب مركا أنت سكوسو جبنينا قف دولة تاجر سنة ربي العادة عن قانون طبعا أمجيده ودولة لا دعسن سياسة جديدة كوده anyway سين نقطة بها النقطة سفيت راشو درجير سوق بدرجير يا درجير سفيت راشو درجير أمجيده dad yar aniga u jeeda dadka dhan uma arki karo waa 10 qofood ayaa arki kara kaliya dadka arki kara hadaan kaga dhawaajiyay magacyadoodana waxaan arki karaa Safii Trasho Najib Kaahiye Abdullah Maxamed Abdullahi Abdirasaaq Anshax State iyo Saki Ibrahim Qaali Shire Fardoos Ali Siyaad Bandar Banaan Saki Sharif Asad Burhan Ahmed Daahir Rashid Ibn Yasin عبد القادر حاجي مو عاشور إيه دتك لو أنا بدنين مركز دتك أصلا أركي كرا الماضي ريال محمد دوخسن هذا أكو شغبة دوخسن هذا أكو بهنا هبا دوخسن تجي دوخسن هدام كوين هدام كله وأوجي بابا هذا دوخسن يا وأكو كان دوخسن قبا دوخسن أكو مخمسة قبا كربلاء كاسارم قيبت قبا شذا anyway قسم ما هنا يثقبت كل حق الله هيليو أدونك ولا قلت يا غير هذا يرجع حسنات بدن إن شاء الله thank you very much دمانتين وأنا ما سنتين باي